haddaanu nahay dowladda Puntland waxaan anagu la shaqeynaa shuruucda caalamiga iyo kaw iyo hadbadekeeda leeyahay dowladda federaalka oo aanu qayb ka nahay waxa jiray shaqaale dhowr iyo 40 gaarayay oo kaw ah oo ka howlgali jiray Hargeysa iyo Berbera haddana markii ugu dambeeyay joogay Hargeysa oo maartay Somaliland markii kaw ay ku wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya shaqadii ka saaray shaqaalaha Soomaaliyeed shaqada laga saaray waxaan u ballan qaadaynaa dhamaantood inay Puntland ka howlgalaan waxaanu diyaarinaynaa inuu Boosaaso iyo Garowe Galkacyo intaba iyo baran iyo airportada kala dhan baqarno aanu ku habayno baahina waa u qabnaa waa guryihiin iyo imaadaan leenahay waliba kaw iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in xuquuqdooda la dhowro shaqaalahaas oo hadbadekeeda leeyahay hadii dowladda Musabbixi ku xadgudubtay oo maaragtay ay shaqadii ka sii deysay iyagoo shaqaale tacab badan la geliyay aqoon badan la geliyay aviation ku qabiil ma galo gobolaysi ma galo insha Allah taala waxaanu leenahay walaalayaal ku soo dhawaada awla dad khabiiraha oo qaar koodana Hargeysa ka keensan way jiraan marka insha Allah taala waxaan leenahay shaqaalahaas anaga idii ballan qaadayna shaqo dhow nolol jaban iyo airportaad ka shaqeysaan intaba waan ka duwanaan doonaa kii Hargeysa iyo Berberaad ka shaqeyn jirteen dowladda federaalka iyo kawn waxaan ka codsanaynaa inay shaqaalahaas si loo badbaadiyo ay Puntland u soo wareejiyaan